Start again. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على حبيبنا ونبينا وسيدنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta waa maalin qiimo badan. maalmaha ilaahay oo dhanna way qiimo badan yihiin. waxaan maanta rabaa idanka eebbe hadduu ogolaado inaanu qaybsanno mowduuc aada muhiim u ah. mowduucaas ciwaankiisa markii aan dooranayay waxaan u doortay waan ku farxaynaa dhalashada nebiga. annagu waa ku farxaynaa dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam. waxaan rabaa qaabka mowduucan aan ku soo aadiyey mawliidka ama dhalashada nabiga sala allahu calayhi wasalam, qaabka inaan ka dhiga qaab su-aalo iyo jawaabo ah. arrintu aada bay xasaasi u tahay, dareenkeyguna aada buu u kacsan yahay, laakiin waxaan rabaa intaan isxakamayn karo inaan isxakameeyo, waqtigana intaan koobi kara aan koobo. waxaan alla ka baryayaa annaga iyo idinkaba inuu qalbigeena jacaylka nabiga geliyo sala allahu calayhi wasalam, uuna noo fududeeyo inaanu ka run sheegno fartiintii uu noo keenay ku dhaqmideeda iyo qiimeynteeda. su-aasha koowaad oon isweydiinayaa waxay tahay, kuwa xafladda mawliidka diidan maxaa loo dhimay? waxaan u malaynayaa in badan oo ka mida walaalaha aan ku midownay jacaylka iyo nabadda inay odhan doonaan aaway abaarihii, aaway dagaaladii, aaway qaraxyadii, aaway qalalaasihii siyaasadeedoo taagnaa, aaway doorashadii, aaway qarankii, aaway higsigii 2017, aaway mustaqbalkii waddanka. maxaa dadku isugu haystaa nebi maxamed ha lagu farxo iyo yaan lagu farxin? dad badan baa arrintaa la yaabi doona. waa ogahay colaadda iyo nabaddarrada maanta taagan oo waddankeena naafaysay, qaraxyada isdabajooga, maydka daraqyada caasimadeena waran, abaaraha gobolada dhexe iyo yani meel walba ka jira, dhibaatooyinka soomaaliya saameeyey, dadka ooman oo tuulooyinka isaga lugeynaya, kuwa haraadku dilooday, kuwa aradan, dhibka jira waa dareensana. mana aha inaanan mawduucaas waktigiisa siinaynin ama uusan hamigayga koowaad ahayn, laakiin nimayahu dhibaataa jirta. dhammaan soomaalida walaalahay ah, dhibkaas wuxuu yahay, su-aal baan isweydiiyey. waxaan isweydiiyey qaylada dhacaysa, dad baa qaylinaya marka la yihahdo maantay barito saa dambe asbuuca soo socda waa dhalashadii nebiga, waa mawliidkii, waa la dabaaldegaya. dad baa qaylinaya, afkay qaylo ku shubanaya. dadkaas qaylinaya waxaan isweydiiyey mawliid muxuu yahay mawliid? mawliidku waa qaraxyo ka dhaca waddanka gudihiisa oo kumanaan dad laaya? maya maaha. mawliidku waa abaaraha dadkaygii naafeeyey oo iga dhigay shacabka keliya oo haraad u dhinta dunida waa Soomaali. marka mawliidku waa abaarta i dilaysa? maya ma aha. mawliidku waa dhibaatada iyo laaluushka iyo jaga iibsiga ka socda siyaasadda dalkayga ilaa cabsi ay taagan tahay 2017 inay kasii liidato kuwa soo socday. mawliidka laga baqayo oo la qaylinayo muxuu yahay? mawliidku waa ciidul acyaad, waa iidaha ugu weyn. waa dhalashadii nabiga sala allahu calayhi wasalam. waa ilaahay oo doortay qof inuu fartiin noogu soo dhiibo oo uu khaatima rusul noqdo oo uu noo keeno diin oo uu noo keeno badbaado. cajiib.
oo kuwa mawlidka ka qaylinaya maxaa aamusiyey shala markaanu baaba'aynay maxaa aamusiyey maanta abaaruhu markay naafaynayeen maxaa ka aamusiyey qallansaha siyaasadeed iyo dhibaatadana haysata maxaa ka aamusiyey faragelinta shisheeye oo naga dhigtay curyaan aan go-aankay rabaan gaari karin maalin walba waxaana la ku maqaar saaraa axad anaan doonayn iyo qof aan u qalmin wadaniyadda hogaaminteeda oo waxay la qiilinayaan ma waxay tahay nebiga maxaa loo xusay cajiib anugu arrintaas waan dareensanahay maxaa yeele waxaan ogahay oo goobjoog u ahay oo xogogaal u ahay kumanaanka hantida ah ee lagu bixiyey in nala ka dhaadhiciyo nebiga oo lagu farxo oo maalintu dhashay la xuso waa musiibo hanti badan baa ku baxda property aad u badan baa lagu bixiyey in dadka loo sharxo dhalashada nebiga oo lagu farxo waa musiibo qaraxu musiibo maaha abaartu musiibo maaha qalalaasaasiyeed musiibo maaha laaluushkii dhibaatadana haysta musiibo waxaa musiibo ah inaad ku farxdo dhalashada nebiga sala allahu calayh wasalam cajiib waxaan rabaa intaasu dareen noogu filan inaan u gudbo maxay ku diidan yihiin waxaa la yidhi hasha maqaarka diidaysaa meelo daloolay ka daydaa waxay ku diidaan ma waayayaan maxaa yeelay anugu marmar su-aalo badan baan isweydiiya laakiin waxaan soo doortay saddexda shay oo ugu weyn mid wuxuu odhanayaa waa bidco oo nebigu ma samayn sala allahu calayh wasalam midna wuxuu odhanayaa waxaa looga dayday masiixiyiinta oo ayagaa nebigooda maalintu dhashay xusa idinkuna waa ku dayateen waa xusaysaa marka waxaad ku dayateen gaalo sidaa darteed waa qalad kan saddexaadna wuxuu yahay shirki baa samaysaan markaad nebiga ammaanaysaan oo ammaanta nebiga shirki baa ka buuxa taasina waxay ka dhigaysaa mawliidka wax qaldan saddexdaasaan soo doortay oo ah saddexda ugu waaweyn nebigu ma samayno waa bidco waxaad uga dagateen masiixiyiinta oo nebigooda xusa christmaska iyo shirkiga aad samaynaysaa markaa nebiga ammaanaysaan cajiib waxaan rabaa si degan oo qabow oo aan colaad lahayn maxayna waxaan garanayaa ninka mashruuca farxadiidkaa wata waxaa ka daba habaabay boqolaal muslimiin oo nebiga jecel oo haddaad weydiiso war halkaa dad baa mawlid isugu tegay haye nebigii bay ammaaneen haye cuntay cuneen haye qasaa'idkii nebi ammaankay qaadeen haye masaakiinta bay xalwad iyo buskud iyo hilib siiyeen haye maxaa dhacay maxaa la sameeyey ma dhiig baa daatay ma dad baa la laayay ma dhibaataa la geystay maxaa dhacay ayagoo su-aalaha isweydiin bay waxay ka daba hadaaqaan kuwo يعني أدمودو نعيبك حفلتان أو حفلة فرحات عندنا ما أورن مولد كوا واجب عندنا ما أورن وصلاة عندنا ما أورن وصوم وحال ما أنت حفلة أو محيطة وحفلة مولد وحنك جوابي يا مد القوات نبي مصمين أو بدعو وحال بدعو وحال هذا وحان كتابك على قصة أرورين sidaa daraaddeed mawlidku bidca ma aha maxaa yeelay nebi moxamed sala allahu calay wasalam wuxuu ahaa fadli iyo dheeraad ilaahay ummaddan siiyey ummaddan ummadaha kaleeto oo nebiyaal loo soo diray bay rasuul la-aan ahaayeen nebiga waxaa lagu yidhi litundira qowman maa undira aabaa'uhum waxaad u digaysaa qole aan horey loogu digin fadli ilaahay siiyey bay ahayd in loo soo diro rasuul oo aysan odhan dadkii naga horeeyay baa loo soo diray annagu rasuul ma aanan helin nebigu wuxuu ahaa raxmad sida alla uu leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun maadaama uu fadli ahaa ilaahay nagu manaystay adduunyada goobo ka mid oo gabdhaha la aasayo oo dadku isdullaysanayo oo dumarka la xaqirayo oo qabiil loo dagaalamayo nebi maxamed markuu yimid sufuuftii buu mideeyey dadkii la dullaystay buu dulligii ka saaray addoonsigii buu joojiyey islaamnimadii buu baahiyey naf iyo maal buu ku bixiyey fadligaas iyo raxmadda aayad qur'aana baa ku soo aroortay
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بدعوا حال إلى هذا ولا له وحن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم دينتي لوسو ديبي أن كجرين وفر صبرت بدعوا حال إلى هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا ما ليس منه قفكي قصة الدين توحان كمد أهين مريد كمكل يسوي ماذا رقص ينيك على سمايا مريد كمكل يسوي ماذا الزنا على سمايا مريد كمكل يسوي ماذا ولس قلقلة ولس قورعة ساهديتها وأهلها ما ليس منه لكن حتى وحل السمين يا ما ليس منه ماها فضلي الله إيه رحمة دي سيبا الغفر حياة مركا موليدكو آيات بو هايستا نبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات دا اسمها دون نبري إنا نفرنو ها وحا سوي الدين كدا ونبي محمد سمين واي ها نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه الرجي لجوغي وحوي أيغاب إيد كجري إيد وما باهمي هذا قربا وحا دعضي نبي عيسى عليه السلام أيا وحا لويري نبي عيسى ميانا صومين حركي سيبا قتل ميانا صومين مركاسو يد وحا إذن ويدي قال قري أراس شوكتا ميي صونتا ها مركي أراس لما هذا أمو إذن خطغات سومي دونتا نبي عيسى عليه السلام أساقا إسونا جيدي أراسكا محايا للنبي الشحنة أو ربي صادري أو رحمة إيباد وضوءها نبي محمد انتو لجوغي عيد بايسان باهنين أنه النبي عن أرد أي عيد ديسا إيا حسكيسا إيا فرحديسا أباهن صلوات الله وسلامه عليه